waxaan leeyahay reer Puntland saddex wasiir baa meesha ka tagay waa wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga wasiir ku-xigeenka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga iyo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha iyo sportska waxaad garan kartaan meesha madaxweynihiin ma tagin madaxweyne ku-xigeenna ma tagin cid kaloo naga tagtayna runtii ma aanay jirin waxaa lagu hayay shirka isaga wax ummadda Soomaaliyeed dan u ah baa lagu hayay wixii aan u aragnay inaanay annaga dan noo ahayn kaman aanan qayb gelin go'aan ka soo baxaana nama uu quseeyo haba yaraatee waxaan u tagnay dhaqaalaha ama new deal-ka higsiga cusub baa lagaga hadlayay runtii ajendayaashii ugu horeysay loo soo dirayna kuma aanay jirin in laga hadlayo xitaa doorashooyinka 2016 in laga wada hadlayo iyo arintan muranka faraha badan dhalisay 4.5 kuma aanay jirin laakiin waxaad moodaa in hadda lagu soo qaadayo sida wararku ay sheegayaan dhinaca siyaasadda haddaan qeexo cid nooga qayb gashay iyo cid go'aan noo geyn karto ama noo soo qaadi karta meesha ma jirto hase ahaatee ummadda Soomaaliyeed xoolaha la siinayo ama dhaqaalaha la siinayo magaca Soomaaliyeed baa lagu bixiyay qaybtayadaanu leena